daawada waa kuma Camaar Cumar halku ku dhashay sidoo ugu gaaray waqtigan aad iyo aad u yar guulaha waaweyn ee dunida oo dhan ka sheekaysato maanta kama hadlayna sheeko dhacday 60kii iyo 70kii oo guud nololeedaas laakiin waxaan ku hadli doonaa mid maanta dhacday aniga iyo adiguna goob joogayaal aan ahayn runtii sheekadani waa sheeko ka yaabisay baraha bulshada iyo TV-yada ka xaajooda dhaqaalaha wiilkani waa wiil yar Suudaaniya wuxuu ku dhashay wadanka Sacuudi Arabiya halkaas oo aabihii waqtiga ka shaqeyn jiray sanado badan kadib aabihii waxa laga yeeriyay shaqadii waxaana uu sii guriga noqday wadankiisa Suudaan halkaas uu in muddo u joogay nasiib wanaag wuxuu dib shaqo uga helay aabihii wadanka isku tagay Imaaraadka halkaas oo qisada wiilka yar ka bilaabman doonto wiilka yar wuxuu ka soo jeeday family aad waxbarashada ugu wanaagsan aabihii wuxuu waxbarashada ka gaadhay heerka labaad aabahani wuxuu ahaa aaba aad u jecel waxbarashada waxaana ku hamiyi jiray in ubadkiisu noqdaan dhammaan mutacalimiin sidoo waalid kasta uu ku hamiyo familigan ma oran karna waa family faqiirina waxa ahaayeen family mushaar qaata sugana bisha dhamaadkeeda marka waxaan oran karna waa qoys dadka iskaga dhex jira oo dabaqada labaad ah Camaar Cumar wuxuu waxbarashadiisii dugsiga sare ka bilaabay wadanka isku taga Imaaraadka waxaan uu ahaa wiil aad ugu liita waxbarashada hooyadii iyo aabihiina aad bay uga warwari jireen mustaqbalkiisu sidoo noqon lahaa iyo halku ku dambeyn lahaa maxaa yeelay wuxuu ahaa ka ugu liita waxbarashada marka loo eego walaaladiisa kale Camaar wuxuu ahaa wiil ciyaar badan waxaan uu ahaa wiil markuu ka soo baxay iskuulka shandadiisa ku tuura albaabka oo ciyaar taga soo noqda waqtiyada habeenkii ee hurdada sidaas aanu ku dhameeyay waxbarashadiisii sare waxaanu ku baxay dhibco aad u yar nasiib wanaag waxa aqbashay jaamacad ku taala wadanka isku taga Imaaraadka kadib markuu galay jaamacadii halkaas ay ka bilaabmatay qaybtii labaad ee nolosha maxaa yeelay wuxuu arkay dadyo kala duwan dhaqan cilmi iyo hantiba iyo fikir waxaanu arkay arday ay isku galaas yihiin kuwaas oo wata gawaari aad u qaaliya oo ku daawan jiray aflaamta su'aalo badan ayaa ku soo dhacday maskaxdiisa oo ah maxad sida ugu nooshahay laakiin iyagu sidee u gaareen horumarkan ballaaran ee la wada arkayo su'aalaha noocan ahina waa kuwa ku horseeda wadada guusha ilaa aad ka gaari doonto wadada saxda ee guusha xaaladda noocan ah oo Camaar Cumar su'aalaha isku weydiinay ayaa waxa dhacday in aabihii laga soo yeeriyay shaqadii sheekaduna way ku sii adkaatay familigii waxaanu Camaar Cumar yiri wadada kaliya taad nolol fiican ku samayn karto waa ganacsi isagoo isla hadlaya ayuu yiri haa waa si wanaagsan laakiin halkeen lacagta ka helaa waxaanu Camaar Cumar amaahu doontay ehelkiisa iyo asxaabtiisii kuwaas oo taakuleeyay waxna la qabtay waxaana hadda la gudboon inuu raadiyo mashruuc soconaya si uu maalgelin ugu sameeyo waxaana loo sheegay mid ku lahaa ganacsi xaafadiisa oo aabihii uga keeni jiray markuu yaraa bugaagta inuu ninkaasi dhoof yahay oo meeshiisa iibu taagan tahay waxaanu go'aansaday inuu ninkii u tago si uu meesha u kala wareego nasiib wanaag ninkii way ku heshiiyeen sidaas aanu kula wareegay maktabadii wuxuu Camaar Cumar niyadiisa gashaday inuu 2 bilood ka bacdi noqon doono milyaneer laakiin 2 bilood markay dhamaatay nasiib xumaa uga soo baxday waxaanu daraasadeeyay inuu ganacsigiisu 100% khasaare ku jiro tani waxay ahayd waxyaabihii ugu xumaa ee soo maray noloshiisa jawaabna muu hayn qoysaskii iyo dadyowgii lacagta lahaa wiilkani wuxuu ahaa mid lagu oran jiray faashil ayaa tahay micnaheedu ay tahay qof guusha ka fog ayaa tahay maalimaha kamid ah isaga iyo saaxiibkii oo gaari ku wada jira ayuu saaxiibkii ku yiri ma baratay ganacsigaaga intaanad bilaawin may ayuu ku yiri gurigii ayuu ku noqday waxaanu go'aansaday inuu research dheer sameeyo kadib wuxuu go'aansaday inuu ka mid noqdo seminaaro online ah oo lagu baranayo kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaanu qaatay koorasyo ku saabsan ganacsiga iyo dhaqaalaha markuu dhameystay seminaaradii iyo koorasyadii ayuu damcay inuu ganacsigii dib ugu soo noqdo kalsooni buuxdana uu ka helay waxyaabihii uu bartay waxaanu abuuray ganacsi yar ku saabsan sida loo sameeyo website-ada logooyinka iyo kaadhadhka shaqada iyo waxyaabo ku saabsan tiknoolajiyada waxaanu fikirkiisu ahaa inuu ka keeno dhanka internetka dadyooyin shaqada noocan ah hodan ku ah oo ka soo kala jeeda daafaha dunida waxaanu sameeyay inuu dhaxeeyo shirkadaha design-ka doonaya iyo dadyooyinka designerska in yar kadib wuxuu dareemay in shaqadani faa'iido badan yeelanayso waxaanu yiri waa inaad samaysataa liisan shaqo oo la aqoonsan yahay
waxaanu dareemay in shaqadani ay tahay shaqo aad loo ballaadhin karo waxaanu damcay inuu kontraag la galo shirkad wadanka laga leeyahay taasoo awood siinaysa ganacsigiisa wax kasta uu sameeyana ka qaadan doonta 15%. halkaasaanu shirkadaas heshiis kula galay maxaa yeelay liisankiisu liisan bilaa awood ah ayuu ahaa waxaanu ku ahaa wadankaas isku taga imaaraadka ajaanib halkan waxa uga bilaabmay shaqo cusub waxaanu raadiyay dhammaan shirkadaha ka howlgala dalkaas ee aan ka dhisnayn dhanka tiknoolajiyada sida website-ada iyo kaadharka iyo sistemada kala duwan waxaanu isku dayay dhammaan inuu ku qanciyo shirkadaas adeegyada cusub ay u bixinayo si ay ula jaan qaadaan horumarka ballaadhan ee dunidu ay ku tallaabsatay waxaanu ku yiri shirkadahaas waxa dhici karta inay idin fududeyso service-yada aad bixinaysaan shirkado badan ayaa ku qancay hadalkiisa kuwaas la sameeyay xidhiidh wala shaqeyna Camaar Cumar runtii waa faa'iiday waxaanu dareemay inuu hayo wadadii guusha shaqaale badanna waa helay raasamaal fiicanna waa sameeyay kadib wuxuu go'aansaday inuu furto xafiis yar oo cusub waxaanu ka furtay xaafad la dhaho Sinaaciya oo runtii aad u buuq badan xafiiskii waa furay laakiin wuxuu go'aansaday inuu shaqadiisii sidiisii caadiga u sii wato shaqadiina way ballaadhatay shaqaalihiina way sii badanayeen maalinba maalinta ka dambaysa markuu arkay in shaqadii kor u kacday ayuu damcay inuu sii hagaajiyo waraaqihiisii laysanka meelna iskugu keeno dhammaan shaqaalihii ka howlgeli jiray shirkadiisaas shaqadiina waxay noqotay mid tayadeedu aad u sarreyso xaalku markuu halkaa marayo Camaar Cumar wuu kiraysan karayay fooq aad u weyn uu geliyo laasamaalkiisii oo dhan laakiin wuxuu qaatay tallaabo aad iyo aad u fiican oo ah wuxuu kiraystay fooqyada la isla wadaago taasoo shirkado badan ay iska walaag shaqeynayaan Camaar Cumar tallaabadan aad ayuu ugu guuleystay waxaana sii badanayay maalinba maalinta ka dambaysa shaqaalihiisii in badan Camaar Cumar markuu shaqadiisii saa ku waday ayuu damcay inuu furto xafiis u gaara waanu furay kadib wuxuu u furay shaqaalihiisii howl weyn oo ay ku howlgalaan maxaa yeelay shaqadiisu waxay ahayd mid looga baahan yahay waqtigaas dalkaas uu ku sugnaa shirkadihiina way isku wada sheegeen dhammaan inuu wiilka yari shaqadiisu wanaagsan tahay sidaas aanu iskugu ballaadhiyay magaaladii uu deganaa iyo dhammaan magaalooyinka kale oo uu ka furtay qaybo kale ganacsigiisuna uu xoog batay halkan markuu marayo ayuu yidhi Camaar Cumar waa inaad dib aad ugu noqotaa koorasyadii iyo seminaaradii si ganacsigaagani adiga la'aanta u socdo kadib Camaar Cumar waa ku guuleystay inay shirkadiisii koobaad isaga la'aantii socoto meel kasta ay ku taalo sidaas aanu ku abuuray ganacsiyo cusub mar haddii uu ku guuleystay inuu ganacsigiisii isaga la'aantii socdo Camaar Cumar nolol cusub ayuu bilaabay ganacsi cusubna waa gelayaa waxaanu furay hotel cunto oo la yiraahdo iBurger oo ka caan ah dhammaan wadannada khaliijka iyo wadano badan oo dunida ku yaala su'aashu waxa weeye maanta Camaar Cumar halkuu jooga Camaar Cumar waa mulkiilaha shirkadaha isku tagay la yiraahdo Royal Sky Group oo ka ganacsada wax kasta sida qalabada dhakhtarada dawooyinka guryaha faanayjiriska iyo hoteelada waaweyn hoteelada cuntada iyo gawaadhida qaaliga waana ku guuleystay mid kasta Camaar Cumar ehelkiisa iyo asxaabtiisa markay isla kulmaan waxay ku yiraahdaan sideed u gaadhay guulahan aad u waaweyn su'aalaha noocan ah ayaa ka batay maskaxdiisa waxaanu go'aansaday inuu siiyo seminaaro iyo koorasyo si ay uga faa'iideystaan Camaar Cumar seminaaradiisii waxa laga baahday wadano badan oo adduunka kamid ah waxaanu ku qabtay seminaarkiisii u dambeeyay wadanka Sacuudi Arabiya oo soconayay muddo 3 isha sidaasani kaga soo qayb galeen in ka badan 400 oo qof Camaar Cumar wadanka uu ku qabtay maanta seminaarka waa kii isaga oo yar aabihii laga soo eriyay shaqadii una noqday dalkoodii hooyo dadaal iyo isbedel uu la yimaaday Camaar Cumar ayaa sabab u noqday inuu maanta isla dalkii ka caawiyo tababar dhaqaale Allah subhanahu wa ta'ala